What we're planning to do from an energy perspective is to see how we can reach all the East African countries. At the moment, Somalia is one of the futuristic countries that we would potentially look at. shirkani oo ahaa mid looga hadlayay biyaha iyo korontada qaaradda Afrika ayaa maanta ka furmay magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika waxaana ka soo qayb galay 7,000 oo wafuud ah kuwaasi oo matalayay 80 wadan oo caalamka ah iyo sidoo kale shirkado badan oo daneynayay sidii qaaradda Afrika ay uga hormarin lahaayeen korontada iyo biyo la'aanta ka jirta qaaradda madow wadamada sida weyn shirka loogu soo hadal qaaday ayaa waxa ka mid ahaa wadamada bariga Afrika sida Soomaaliya Kenya, Sudan, Ethiopia iyo Uganda. Maxamed Umar Talyaani iyo Abdulqaadir Jamaaluddin oo ka mid ahaa wafuudii lagu casuumay shirka ayaa TV-ga Universal uga warbixiyay waxyaabihii shirka looga hadlay. shirkan caalamiga ah maanta aan ka soo qayb galno wuxuu ku saabsanaa korontada ayaa ahmiyadiisa ugu weyn ahayd iyo Afrika shirkado waaweyn oo caalamiina way ka soo qayb galeen shirkan oo interest gareynaya korontada laakiin Soomaaliya ana ku metelay shirka oo casuumaad helay alxamdulillah marka muhiimadda ay korontada leedahay ayaa looga hadlay expensive ku baxo korontada halka Soomaaliya waxyaalaha ay ka faa'iideyso ay ka mid tahay korontada aadka qaaliga u ah Soomaaliya qiyaastii magaalada Muqdisho kale 4.5 milyan ay ku bixi karto korontada dadka barmatiga laga qaaday guryaha iyadoo so expensive inay tahay lagana dhalin karo korontada waxyaalaha loo yaqaan solarka oo qoraxda looga faa'iideysan karo Soomaalida waa fiicnaan lahayd inay ka soo qayb galaan conferences-kan oo kale si ay solutions u raadiyaan dibka adduunka haysta anaga waan haystaa wax dibka kaliya kuma ahin adduunka waxa loo wada raadinayaa biyo iyo koronto raqiis ah Soomaaliya waxay ku jirtaa meelaha adduunka ugu qaalisan korontada iyo biyaha biyo nadiif ah ma haysano reliable ah marka dawladdeena ama dadka ka socda communities-ka Soomaalida waa inay imaadaan oo meelahan oo kale ka soo qayb galaan oo ay at least ogaadaan solutions-ka meesha yaallo shirkani oo sanad waliba mar lagu qabto dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalmood ah shirkani looga hadlayay biyaha iyo korontada qaaradda Afrika ayaa waxa ka soo qayb galay ilaa iyo 80 wadan oo caalamka ah kuwaasi oo daneynayay maalgashiga qaaradda Afrika xassankaafi maxamed shire telefishinka caalamiga Universal holka shirarka City ICC Cape Town Koonfur Afrika